laba nin oo reebaadiya nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam laba su'aalood bay weydiiyeen mid wuxuu yiri rasuulka ilaahayow dadka yaa u khayr badan wuxuu nabigu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam nin cimrigiisuna dheeraaday amalkiisuna fiicnaaday cimri dheer iyo amal saalixa la iskuma helo daaca ilaahay tabaaraka wa taala waa yar yahay dadka isku hela ninkaas dadka u fadli badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii labaad wuxuu nabiga weydiiyay sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahayow islaamka sharaa'icdiisi iyo ahkaamtiisi waa igu badatay ee hal qodob oo ku dhago oo ii kulmiya waxaan rabay oo dhan aan ka helay ii sheeg nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam arabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilaahay dhikrigiisa ku qoyan yahay oo ka qoyan yahay kaasa waxaad rabtay ku urunaya meel gooniyood ku dhagto soo ma rabtid dhikriga ilaahay arabkaagu ha ku qoyanaado saasuu nabigu u sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi baab jaami'a oo khayr adduunyo mid aakhiraba ku kulminay الله تبارك وتعالى حسكيسه يعربكاغي iyo qalbigaagu inuu ilaahay xuso tabaaraka wa taala waxyaalaha lagu gaaro waxa kamida wax aad u weyn waan meel kale laga helin الله تبارك وتعالى madkaad xusto isaguna waa ku xusaya fadhkuruni adhkurkum adoomadaydiyo xusa anuguna waa idin xusayaaye الله markaad carabkaaga ku sheegto ilaahay adigana waa ku sheegaya naam inaad ilaahay xustana iyo inuu ku xusana waxa ka weyn inuu isagu ku xuso oo magacaaga iyo sharafkaagaba kor lagu sheego ayaa weyn waana ta ilaahay quraanka inoogu tilmaamay tabaaraka wa taala utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ilaahay kitaabkiisa akhri oo raac salaadana toosi salaadu dadka tukada xumaanta iyo dunuubta foosha xun bay ka reebtaay kadib waxa leeyahay wala dhikrullahi akbar ilaahay xusida uu xusayo adoonkiisa ba ka weyn xusida adoonku ilaahay xusayo laba xusid way mid adiga la iimaanay mid alla timid waxa ka dhalanaya in ilaahay ku xuso labada ka weyn in ilaahay ku xusaa ka weyn saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu rabbigi ka wariyay inuu alla yiri tabaaraka wa taala anugu waxaan ahay adoonkayga malihiisa agtiisana wuxuu iga malaysto ayaan agtiisa ahay hadduu ixuso isagoo kaligiya ixuso aniga gooni ahaantayda u xusay hadduu isagoo dad dhex jooga dhexdooda igu xusana aniguna kuwa uu igu xusay dhexdooda kuwa ka khayr badan baan dhexdooda ku xusaya wa malaa'ikta rabbi tabaaraka wa taala iyo makhluuqa qiimaha badan ayuu ilaahay dhexdooda kugu xusaya magacaaga yaala meel qiimo badan way لأن ربك بعد حسن تبارك وتعالى حسك ربك كحسية كشيء بأمرك كوين أديك هذا ولا ذكر الله أكبر سيد عبد الله بن عباس كسر بإسناد صحيح